السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة إيه وجنبكي إمام شرف وإدريس ودواد ملك صدني ذاتي دكتور ولا عليك قالقة إيه ما أنتوا حائديها يا برنامج كان إديها واقساء دي هذا حنون بدنا كل واحد جبر صوماليات جودا سو أو بيهيد هاي أبياش دي أدو كله لقى عصد ولا عليك قالقة به أيات كان وقت جبدي وبحي مال قبل وسفر وآذي ولا عليك قالقة إيه مركو سفر وآذي dukaanka soo horjeedo wiil gadanayo bay gabadhii heshiiyeen labadoodii kadib markay heshiiyeen labadoodii waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan guur waxay isguursadeen oo qodbo sare ah qodbo saradooday galeen kadib gabadhii waxaa kusoo baxay uurkii markuu kusoo baxay odagani safar ku maqan yahay in badan wuxuu maqnaado gabadhii xaamil ah oo imaaday marka dambe odagii gabadhii oo ul qaatay baakoor soo qaatay oo tumay u garaacay oo yirshadna markay awladay wuu garaacay jajabiyay gabadhii markay waxay ninkaas dukaankaas iga soo horjeeda hebel aan urkan leeyaabo maxay dilay aabana dilay dadka isku soo bixin dadka la dhahaa hebel ma waalata war head daaf gabadha maxaa ku dhacay hebel gabadh maxaa soo ugu dilaysaa markaas uu maxay tahay urkaaniga dukaanka ay gad lahay ma war wixii ay qaadaan dhaxaniga war waxa laga yaabaa inuu aabihiis joogo wiilka gabadha aflaga hadeenin bal horta soo waxso بس وحسوا بي تكان كيو تجمعوا لهاي عصوا باكورتي سوتو أو كرايو أو هذا السدو ويا لا دارت أتنحس داب كيسوين وضيق ويلك وماذا قبل إنه دلها إنه مغلي وريا قبل هذا ماذا وريا وقوية وريا ماذا قبت وريا شيف أضيها وأنا قبل كام قو أورنا إيمالا هنا إني بتجلي ولا هاي عصوا كبقى أضيق بس أفعلت القاري وحاد عليه gabadhii ku soo laabtay weernaaya waa ka saniku waqti wax uur ee ilaada malahan oo dhahay uurkan wicilka meel ka keentada oo wasaqay xunta ala kultiga madna dadka ka tugan xal adeero iska dhaaf wixii dhacay dhaceen wax soo laabanay malahan hadda gabadhii faraaq ka qaat gabadhii waxay iska joogto walaalay qaaliga waxa dhacday gabadhii inay maalmaha kamid ah foolato way ee dhashay intaas ninkii oo baqaya ilaa anama dhalno dhama sheegi karo wax la joogo wiilkii markuu 20 sano gaaray oo dadkii dhahayaan waa wicil aaba ma qaba leeyahay waxa dhacday walaalay qaaliga in oo odagii yimaado oo yiraahdo hay aniga ku dhalay wiilkeygiyo ana aabaha oo hada aabahay taa maxaa tan intii ani ii sheegay wayso markii mar walba aflaga deena soo leedahay aaba ma leedahay aabo hada joogto aabahay taa maxaa ii dhiweys calaa kulli xal awoohaya dhibaatadan ka dambeeyay awoowaha nin aad u kulul ahay awoowaha ka baqaay aniga xarig xalaalan kugu dhalay wiilkeyga xalaasha tahay anoo awoowahaas ka baqaayaan saas u iri asxaabtida qaaliga waxaa dhacday wiilkii in asagoo 20 sano jiro inuu aabihiis soo sheegto meeshii uu aabihiis xudur anaa ku dhalay haddana ku waqlalaaya meeshii waqlal xoolo la qalay duca ka dhacday marka dambe soo laabayay marka ma fiicano in dadka aad kulna maxaa waaye inay isqawjiyaan fiican sababtoo hadii oo kuleelkaaga camalkaaga u bato waa dhibaato marka walaaleyga qaaliga walaahi wiilka isaga weyn oo aabiis helay markaas maalin waxaa dhacday oo yani oo diiday isaga oo yaraa laakiin markii dambe waa ogolaaday oo u waqlalay markuu u waqlalay asagii baa qaatay gabadhiina wuxuu yiri eebelba aniga ku qabay maxaa qabitaan 20 sano kadib waraga tagay tiri inta isguursan kuraajada igu guursato aabay aad ku dhiiweys ana qabanaagtan ila aabay qorinta ku qaato nafta kaama jaraaye amaan isii tiri wiilkaasna adaa dhasho anna waa ogahay allana waa ogyahay adna waa ogtahay wiilkiisa sida ku qaato loogu magacaas u baxsaday wiilkeyga anaa dhalay asxaabtida qaaliga marka waxyaalaha qaar waa laga fiican yahay sidii wiilkii aabihiis ku helay dadka dhan wala aabihiis oo hebel Allah meeshii yaa lagu duceystay walaaleyga qaaliga ilaahay dambigeena dambaadkeen baa dhaafo ilaahay dhibaatadan dhacaysan ilaahay dhinaca nooga mariyo waa laga yaaban yahay ayantan dhibaatada aad u soo badatay yani lagu sameeyay dumarka ya ilaahay naga qabto ragga ku maqan in ilaahay naga qabto gabdhaha Soomaaliyeed yararka ah farxineenayo ilaahu rabbi raxmaano iimaanka galkaas
oo ilaahay rabbi raxmaan dhibaatadiisana mooti oo ilaahay rabbi raxmaan oo shar iyo shaydaanka naga qabo oo ilaahay rabbi raxmaan oo adduunka noo wanaaji oo ilaahay qaatimada noo soo rabbi raxmaan ilaahay gafteen iyo geerideena kulmi rabbi raxmaan oo asxaabteeda qaaliga waxyaalaha dhacay waa waxyaalo laga xumaado walaalahayga qaaliga haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh laagna ii saar ii share garay commentna ka bixi walaalahayga qaaliga waad ku mahadsantihiin daawashada ay daawateen أجر يحسن الله يسير ولا عليه خالقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.